بس أنا دين شيء جاية دكتور جعفر إدريس شيخان قبوبي السوداني جاء إلى عاف ماديو من سقاشك هدافو علماء دواوين المسلمين تكمدا فيلسوفنا أي وحيري وكور رميا دعاء الدهصون يعني عيدنا أوغين أولي دعاء الدهصون هلا عاوية مركا لبن نبو كور رمي ومريكن كتشوغا بدو حلوة تكسيلة تاكسيغا wuxuu dadka kaga soo qaadaa airportka magaaladu keena taksigiisa markaa cidi soo fuusho ayuu quraan cid macaan u saaraa maraykanka iyo dadkaas waa dad hadal badan oo warka iskala kaa bilaabaya yurubiyanka maalan scandinavianka oo kale guriga kugu xigaa weliga kula hadlimaya ka ku jira wadada aamusan aan waxba ku darsanin laakiin qoladan af ingiriisiga ku hadasha waa dad aad u furfuran oo dadka iskala qabsada markuu quraan cid macaan saara bay yidhaahdaan heestani maxay ahayd isagu su-aashaa unbuu rabay inuu la weydiiyo waa cod macaan yee ninkan heestu qaadayo markaasuu wuxuu bilaabaa inuu yidhaahdo it's the last revelation from God waa waxyigii ugu dambeeyey samada ka yimaada halkaasuu ka bilowdaa markaa warkiisa 58 qof buu kursiga dambe iyagoo saarana shahaada u qabta 58 qof 6 bilood gudahoodna weeyaan maaha waqti badan 6 bilood gudahood buu 58 qof oo kursiga dambe ee taksiga saaran waa shahaada u laqibay ka labaad ee uu ka warramay waxa weeyaan nin soo islaamay oo aan aqoon diineed oo badan lahayn muslimuun iimaanku galay oo iimaanku ka dhab yahay niman carbeed oo muslimiin oo masaajidda ku tukadayeen waryaadhe war dadka naarta ku socdaane kaalayo raaca dadka ana soo qabanaya idinku kaan idin keenan wuxuu sheega maalinba laba dadka masaajidka jooga af carabigana yaqaan ayuu ka xeeyaa isagu faatixadu dirka ku akhrinaya wadada dadka maraya ayuu shartaaga ma rabtaa inaad islaamka wax ka ogaato dee waa bini aadama wax walba oo ku dhaca qaar waxay dhahaan war naga bannee iska daaya buu yidhaha isagaa diiday ka yidhaahda islaamku muxuu yahay gacantuu qabtaa wuxuu yidhaha warkaan wuxuu sii sheega dabeetana isagu waddadu ku noqdaa isagu dadkaa waddada maraya ee laga khajilay islaamku qofkaasaad iskala hadli ayuu indha caddays ugu tagaa unoo yidhaahdaa war diinta wax ma ka rabtaa inaad ka ogaato kii yidhaahdaa muxuu yahay gacantuu qabtaayo nin carbeed halkan taagan buu geeyaa wuxuu yidhaahdaa diinta u sharax waxaan uga dan leeyahay qofka bini aadamkii hadduu ku talagalo inuu wax qabto waxbuu qaban karaa laakiin aan run isu sheegnay ma jiraan niyadaa waddankan cid ku timi bal gacanta taag nin markuu waddanka imanaya islahaa dadka aad islaamisid mise waxaynu u badannay nin islahaa cilmi ka qaado jeebabkooda baadho in lacaga ka sii qaado oo ka baacmishtare wax kale inuu soconnay war haddaba tii kalena si ay idinku asaxdo oo iyada lafteeda aan aakhire laydiin weydiinin tanna ku dara dadkan adigu xilku kuma saaro qofku inuu islaamo iyo inaanu islaamin ilaahay baa taa ku shaqo leh adigu inaad u sheegtaa ku saaran hayse odhan waa lagu diidi iyo waa kan iyo falsafadna uma baahna iyo wax waaweyn oo aad ka warranto uma baahna waar ilaahay cirkan iyo dhulkan baa abuuray baa rasuul soo diray rumee intaasoo adiga kaaga baahan tahay philosophy iyo wax kaloo waaweyn dadku waxay sidhahdaan talo dadku markuu islaamaya maxaa loo sheegaa waxaa loo sheegaa war laa ilaaha illa allah bas wax kaloo badan uma baahna ciddii aqbasha ahlan wasahlan gee meelaha islaamka lagu barayo ciddii ku diidda xoolade kumaad lahayna iska dhaaf hadduu ku diido khalaas iska dhaaf adiguna markaa inaad badbaadaabay u badantay oo qof soo islaamo xaqa haleelay hadduu kuu duceeyo oo uu garto ninkii naarta ka badbaadiyay inay tahay ducadiisa in alla ku aqbalaabaaba laga yaaba oo aad kaa ducadiisoo saadiqa ku badbaado marka dee warka intiisii badnayd culammada idiin sheegtay anu waxaan idin leeyahay ilaahay ku xidhnaantiisa badiya baryadiisa badiya cabsidiisa badiya wax kasta oo u baahantihiin isaga albaabkiisa ka raadiya biyadihi lmulk wahuwa calaa kulli shayin qadiir ilaahay bal wuxuu isku sifeeyey waxana anaa haysta wax walbana waan awoodaa alghaniyu alkariimna waan ahay alraxmaan alraxiim ilaah deeqtoon oon waxaan waxba u taraynin naxariis badan karam badan oo deeq badan jawaad ah
وحكست بحية إذن إلهي بريدي سنبت صدى عبادتي سنبت صدى دين تنكرون شيئا دي الدعاء دي نسود عينانا وإلهين وآخرا ما يلفي عن إنه كل ميو جنة دي سينو إنه كل ميو حسابتي عقابك إن الله سبحانه وتعالى أنا قفضي ديو ربي كو عفيين إنه قدره